يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي رواية أخرى في حديث عمر بن الخطاب: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية أخرى: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسأت فلا تنتظر الصباح، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله في 100 مرة. waxaynu ku mahadinaynaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu mar walba mahad u sugnaatay. allaha ina abuuray ee fii axsani taqwiim inoo abuuray ayaynu mar kastaba iyo xaalad kastoo aynu ku sugannahay allahaasaynu u mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay isaga ayaayna abuuray, koonkan aynu saaranahay oo dhan isaga abuuray subxaanahu wa tacaala. waa khaaliq. ilaahay sifadan wuxuu ku sifoobay qabla an yakhluqa alkhalaa'iq. intaanuu shayba abuurin ayuu ilaahay sifadan abadal aabidiin ayuu iska lahaa. laakiin sifadan markuu ilaahay qof bili-aadana markuu abuuray sifadan kumuu sifoobin khaaliqnimad ah, ee wuxuu ku sifoobay qabla an yakhluqa alkhalaa'iq. intaan waxba abuurin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadan khaaliqnimada abadal aabidiin buu iska lahaa subxaanahu wa tacaala. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waa raasiq, isagayna arsaaqaya. wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay meel aanad kaba filinaynba ayaan kaa arsaaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa goorma? waa markaynu ilaahay si fiican uga baqanno, sidii uu yidhi ii caabuda ee iga baqda. markaynu uga baqanno ilaahay subxaanahu wa tacaala umuuraheenno dhan isaga ayaa gacantiisa ay ku jiraan, isagaa inoo fududaynaya walaali subxaanahu wa tacaala. waa xaafid, isagaayna xifaadaynaya. adduunkan oo dhan isagaa xifaadadiisa haya. habeenkii waynu iska seexanaa, inakoo caafimaad qabna ayaynu soo toosnaa walaali subxaanahu wa tacaala. sidaa awgeed waa maalik, mulkiga oo dhan isaga ayaa iskale walaali subxaanahu wa tacaala. mulki iyo maamul ilaahay unbay u sugnaadeen subxaanahu wa tacaala. maalinka qiyaame subxaanahu wa tacaala, marka banka qiyaame la taagan yahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu akhrinayaa suuradda aayadda ku jirta suuratu Ghaafir boggeega aayadaha ugu dambeeya bogga koowaad: yowma hum baarizuuna laa yakhfaa cala allaahi minhum shay liman ilmulku lyowm. ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala odhanayaa lilaahi alwaaxid alqahaar. dabeed ilaahay ayaa isku jawaabaya subxaanahu wa tacaala lilaahi alwaaxid alqahaar. mulki iyo maamul waxa uu sugnaaday ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala
ilaaha subxaanahu watacaala ee koonkan iyo khalaa'iqda ku dhex nool unba ilaahay unbuu wuxuu u sugnaaday muxuu ahaye mulki iyo maamulka. sidaa awgeed walaalayaal maanta waa adduunyo, berrina waa aakhiro. waxaa laynoo baahan yahay inaynu markaynu ilaahay aynu tagano innaka oo dhammaystiran inaynu u tagno adduunyadan. qof kasta oo ku nool adduunyadan wuxuu ku muxuu ahaye uu ku ciqaaban yahay inuu intiqaalu duniyadan iskaga tago, ayuu qof walbaaba ku xukuman yahay. kullu nafsin daa'iqatul mowt, naf ma noole buu ilaahay subxaanahu watacaala ilaa waxay ku xukumanta in la oofsado oo ay dunidan kasoo intiqaasho. nabigeena maxameda sala allahu calayhi wasalam ayaa intiqaalay, dunidan wuu ka intiqaalay. axsanul bashar buu ahaa, wax ilaahay abuuro kii ugu fadliga badnaa ayaa dunidan ka intiqaalay. walaalyaal iyo alla ka baqiisii waa laynoo sheegay. habeenada ka mid a ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam salaatuleyl buu u kacay. waxa uu ku tukaday 5 jis iyo badh, cagihiisaa dildilaacay. ummunaa caaisha radiallahu canhu ayaa waxay leedahay, yaa rasuulallah, ilaahay rasuulkiisa ilaahayo, lima sanacta, maxaad san u samaynaysaa? jawaabteeda u fiirsa walaalkayga muslimkow, rasuulka ayaa bixinaya, wa afdalulmakhluuq, koonkan ilaahay wuxuu abuuray kii ugu fadliga badnaa ayaa jawaabtan bixinaya. afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura, ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay, haddii ilaahay uu dembigaygii hore iyo kaygii dambaba dhaafay, miyaanan anu jeclayn inaan noqdo afalaa akuuna cabdan shakuura, addoon ilaahay u mahadnaqa inaan noqdo miyaana ahayn buu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam. maqaalo cumar binu khadaab leeyahay waxaa laga hayaa, xaasibuu qabla an tuxaasibuu, waar isxisaabi intaan ilaahay ku xisaabin, een ilaahay subxaanahu watacaala awood intaa leeg leh intaan lagu horkeenin isxisaabi. cumar bin khadaab, laa tuwaaru samaaun samaa walaa ardun arda walaa jabalun maa fii qacriha walaa baxrun maa fii wacriha. abadar alkhafaari waa saxaabi aynu aad u fadligiisa u garanano. wuxuu hi 3 ayaan adduunyada ugu jecelay, 3 waanay 3du ay bini aadamku ugu necab yihiin. 1 dhimashada, 2 faqriga, 3 xanuunka. saxaabadu dhex fadhiya, waa qiso aad saxaabada uga yaabisay. waa la weydiiyey, yaa abaadar, bal 3dan muxuu ahaay sifo maxaad ku doorataa layidhi. 1 horta waxaan doortay buuhi faqri. maxaad ku doorataa layidhi faqriga, ilaa qof faqri jecel inuu adduunyadan faqri ugu noolaado qof jecel ma jiro. qof walbaaba wuxuu jecel yahay inuu muxuu ahaa ilaahay hanti siiyo. wuxuu hi faqriga waxaan ku jecelahay, waxaan ka helayaa buuhi tawaaduc, ilaahay baan u tawaaducaya. oo qof aan xoolo haysan siduu isku weynaysiyaa ku kibra way adagta. waxaa layidhi maxaad ku jeceshahay muxuu ahaaye dhimashada. wuxuu hi dhimashada waxaan ku jecelahay la kulanka ilaahay baan jecelahay. waxaa lagu yidhi maxaad ku jeceshahay muxuu ahaaye xanuunka. waxaan ku jecelahay buu yihi xanuunka dembi dhaaf ayaan ka helayaa buu yihi saxaabi. dadka hadlaya waa dadkii saxaabadii nebigeennii la noolaa, macallinkii ugu fiicnaa ee koonkan ilaahay soo diro nebi maxamed ayuu ahaa. ardaydii ugu fiicnayd ee dunidan soo martaana saxaabatu maxamed beed. walaalayaal mar kastaba waxaa laynooga baahanya inaynu ilaahay si dhaba uga boqonno. nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay, man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin. qofku ilaahay subxaanahu watacaala uu la doono inuu khayrka adduunyada uu la doono, wax kale ma siiyo, hantina ma siiyo, lacagna ma siiye, diinta unbuu si dhaba u fahansiiya. walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay inaynu shaqaalo diineed noqono, inaynu diinta ka shaqeyno, inaynu adduunyadan aynu muxuaha ku mashquulno looma baahnaa. adduunyadan waa laga intiqaalaya, waa la socdaa, meel baa loo socdaa. meeshaa loo socda waxaa loo baahan yahay in loo diyaargaroobo oo diyaargarow la sameeyo. diyaargarowgaasna waxay nooga baahan inaynu daartan adduunyo inaynu ka diyaargarowno. qabri baa jira, cadaabulqabri baa jira, xisaabdan baa jirta, la kulankii ilaahay baa jira. intaasoo dhan waxay nooga baahan tahay inaynu u diyaargarowno. marka waxaan jecelahay inaynu muxuu ahaaye aynu nafteenna iyo naftaydan oo ka bilaabayay nafaha muslimiinta ku nool adduunyada waxaan u dardaarmayaa oon muxuu ahaaye mar walba aan ku boorinayaa
inaynu ilaahay si dhaba uga boqonno salaadihiisa tukano wixii acmaal ee ilaahay ina faray inaynu sideeda ula nimaadno wixii rawaatiba sunnaana inaynu sideeda ula nimaadno way nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay rawaatibta badiya way rawaatibtu maalin loo baahan yahay acmaasha ku hadii salaadaadu ka yar jabto salaadii rawaatibta lagugu kabaya soonkaaga waajibka haduu ka yar jabo soonkii sunnaha lagugu kabaya laakiin hadaanad rawaatib laan maxaa lagugu kabolaalayaa marka waxaan u baahanahay inaynu adduunyadan aynu gabigeena waynu ka wada soconaa meel baynu soconaa nabi maxamed baa adduunyadan iskaga tagay marka waa laga wada tagay adduunyadan ilaahay baynu la kulmanaa ilaahay koonkan iska lahaa ee ina abuuray awood inta lag iska lahaa ee buuraha iyo samaawaadka iyo araadinta iyo waxa ku dhex nool iyo badda madow gudaheega waxa ku dhex nool ilaah arkaya ayaynu ilaahay aynu hor istaagna walaalay subhanahu wa ta'ala ilaah ay loo baahan yahay inaynu si dhab ah uga boqono oo aynu u sii diyaar garowno la kulankiisana aynu jeclaano wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك من بعدها تقوى